kufsi dhac dil iyo bililiqa ayaa lagu eedeeyay ciidamada dawladda dhawaan ay ku daabushay deegaanka Raas Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose halkaas oo la rabo in xoog ay kaga wareegaan ciidamada Jubbaland ee ku sugan sida ilo wareedyo kala duwan ay xaqiijiyeen war ay baahisay Jubbaland ayaa lagu sheegay in ciidamada dawladda ee Gorgor iyo Haramcad ee dhawaan halkaas la geeyay ay tiraha weena kufsadeen sidoo kale dhowr dukaan oo deegaankaas ku yaala ay dhaceen dadna ay dhaawaceen isla markaana lagu dabiibayo qaybo kamid ah xuduudda ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya warkan oo ah war ay badi la yaabeen bulshada Soomaaliyeed ay soo saartay dawladda Jubbaland waxaana lagu baahiyay telefishinka Jubbaland iyadoo oo badi bulshadu ay la yaaban yihiin in Jubbaland xilligan ciidamada dawladdu ay ku eedeyso kufsi dil dhac iyo waliba waxyaabo kale oo aad u badan warka ka soo baxay Jubbaland ayaa waxa lagu sheegay in deegaanka Raas Kamboni ee fariisinka ay ka dhigteen ciidamada Haramcad iyo Gorgor ay ka geysteen kufsi ay u geysteen haween Soomaaliyeed taa oo runtii wax aad loola yaabo lana fajaco warka qoraalka ee ka soo baxay dawladda Jubbaland ayaa waxa lagu yiri deegaanka Raas Kamboni ay dhawaan qabsadeen ciidamo uu soo diray Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay in halkaas ay ka geysteen gaboodfale kala duwan saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ilaa 7 haweena ayaa la sheegay inay kufsi u geysteen ciidamada dawladda federaalka ah iyaga oo sidoo kale dhac ka geystay ama dhac u geystay qaar kamid ah goobaha ganacsiga deegaanka dhinaca kale saaka ciidamada ayaa xabadeeyay 3 gaari oo shacab ah oo halka marayay waxaana ku dhaawacmay 2 qof oo shacab ah oo hadda lagu dabiibayo deegaanka Kiyunga ee dalka Kenya oo xadka u dhow ilaa iyo 10 kamid ah goobaha ganacsiga ee deegaanka Raas Kamboni ayaa la sheegay in ciidamada Haramcad iyo Gorgor ay dhac u geysteen iyadoo oo meelaha qaarna ay ka dhaceen lacago cadad ahaan ah kuwa aad u badan ama kala duwan ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Jubbaland warka dawladda Jubbaland ee lagu baahiyay telefishinka dawladda ayaa wuxuu intaas ku darayaa inta badan dadkii aaga ku noolaa ayaa ka qaxay iyaga oo cabsi ka qaba dagaalo u dhaxeeya Jubbaland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya inay ka dhacaan deegaanka iyada oo dadku wali deegaanka ay dareemayaan cabsi iyo soo kale argagax warka ay soo saartay Jubbaland ayaa sidaas u dhignaa wuxuuna yahay mid kamid ah dhaawacyada xoog leh ee soo gaarayo sharafka iyo qiyamka ciidamada dawladda bacdama dawlad goboleedka Jubbaland ay xilligan ciidamada dawladdu ku cadeynayaan ama ku eedeynayaanba inay kufsadeen 7 haweena oo Soomaaliyeed sidoo kalena ay dhaceen 10 goobood oo ganacsi oo u badan dukaamo lacaga cadad kala duwan ahna ay dukaamadaasi ka dhaceen waxa kale oo la yaaba in ay rasaaseeyeen 3 gaadiida ciidamada dawladdu sida ay ku eedeysay Jubbaland weeyaane in ay ku dhaawaceen wiiraan 2 qof oo lagu daweynayo Kiyunga oo ka tirsan xadka Kenya ama ka tirsan qaybta Kenya oo aan sidaas uga fogeyn xadka ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya si kastaba ha ahaatee dagaalka u dhaxeeya Jubbaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa cirka isku sii shareerayo shalay ayayna ahayd markii khudbadda salaadii Jimcaha kadib weerar afka uu ku qaaday Axmed Maxamed Islaam Madoobe hogaamiyaha Jubbaland dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda dagaalka hadda waa uu sii xoogeysanayaa dhinacyada ciidamo ay isu adeegsan karaan iyadoo oo dawladdu dhowr ciidan ay geysay halka kuwa Jubbaland oo isdhiibay iyaguna laga soo dejiyay Muqdisho lana marsiin doono nidaamka ciidan sida dawladdu ay sheegtay marba haddii ciidamada dawladda ee tababarka kala duwan qabay haystay agabka dagaal ee kala duwan sidoo kale lahaa xirfadda ugu sareysa ciidamada xilligan lagu eedeynayo kufsi dhac iyo boob hanti dadweyne waxay muujinaysaa ifafaale kale oo ka baxsan kii ay qabeen shacabka